السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبديني ودسو سلاميسا ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay qof kastaaba intay xilliga u tahay duhurnimo wanaagsan haday duhur ku tahay anaga sideen oo kaleeto alxamdulillah roob ayaa maanta noo da'ay jawigu waa fiican yahay inkastoo maaragtay xoogaa yar aan xoogaa maanta yara naxsanahay maanta waxa waaye salaan kadib waxaa rabaa maanta inaan waxyaabo badan idin sheego naftayda maanta iyo aniga iyo shaydaan aan soo kala gaarnay inaan sameeyo wax kale ma aha videoga waxaa rabaa qof walba oo islaam ah ama qof walba oo Soomaali ama qof walba videoyadeyda daawo jira ama qof aan daawo jirin xitaa inuu maaragtay u geysaan iyo waliba dadka youtuberada ah youtuberada isticmaalaan marka horta maanta saaka marka soo kacay jadwal ku soo kacay haddaba aydiidu weyna jadwal kale ayaa ku jira codsigaas aan wato maanta inaan waxaan rabaa adinkana ilaahayna igu garab gala adinka ducaa igu duceyseen ilaahay maxaan ku raadayay soo maartay igu naxariisto damdaaf la iga dhigo la cafiyo adinkana ilaahay cafiyo waxaan rabaa maanta inaan go'aan ka gaaro waxaan intaas sano ku jiray oo maartay aad u xumaay kulleeto ilaahay wuxuu raali ka yahay ma ahayn si kastoo xataa loo dhaho maaragtay qofka fankiisa idabuu leeyahay ama ibkii fankiisu saas uu yahay wuxuu kulleeto ilaahay raali ka yahay bataatan ma aha maanta waxaan rabaa inaan isdii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku raadaaye hees damboon qaado inay bataata halkaa iiga egaatay oo aan noqdo adigan i daawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkeeya ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo waliba ka fiican hadday suurto gasho insha Allah fankeyga hadda kor waa idii sheegay waxaan idin dhahaa fanka waa ka baxayaa mardhow laakiin maalin bay ku sii dhiibaysaa maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu ku leeyahay maya ayaan iska yara joog kadib waxay maya meeshaan yartaad ka shaqayso lacagtaadan iska heesayso iska gurguro kadib waxa waa ayaan markaad joogto iska dhaaf intaas sano aniga fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulillah xilliga ugu dambeeyay oo niyadeyda ay ka soo go'day waliba si cabsi leh uga soo go'day ayay tahay sababaha jirana idin sheego waa idin dhahay fanka waa ka baxaya laakiin waxaan rabay qofku horta naftu kula ma tashato naftu tii ahayd kula ma tashato maanta yaad joogtaa bariya lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada ka soo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay ahayd markaan soo kacay wiil baa i soo wacay wiil markuu soo wuxuu ugu yiri iblaayo mataqaanaa haa gabar xalay meeshii joogtay meesha aniga ka heesay geeskeyga ku ciyaaraysay ilaah baa ku dhaartay anaa heesay iyadana geeskeyga ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayuu ugu dhahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waxay ila noqotay dee waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku yidhi warma gabadhi markay meesha xalay kasoo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xagee ku nimatay gabadhi waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan ilaa hadda aniga beenku idiima sheegayay gabadhi waxaa la yidhi jirkeedii waa gogo'ay ma la arkayo ilaa hadda anuun aaminsanin qalbigeyga aad buu u cabsanayaa wuxuu cabsanayaa waxawaaye waa wacay xitaa wiilkii waxaan dhan nambarada iisoo dir wiil kaleto oo meesheeda imaan jiro dadka keeni jiro tagsiila ilaa hadda wiilkaas magaciisa bas waa lii sheegaya laakiin aniga muuqiisay inaan garanayo waa garanaysaa lagu dhaa laakiin magacii maybe dad badan oo aniga waxaa jira aan muuqa ka garanayo oo magacooda aanan garanaynin laakiin gabar aan caadi u garanay ay ahayd waxa la horta ilaahay ha naxariisto adinkana u soo duceeya waxay aadaa la yiri neefasha u sii socdeen la dhahay markii u sii socdeen waxa la yiri gaariga iyaga saaraayeen walaasheed iyo wiilal kale iyo dad kale la saaraay way ka degteen bal fiir malakumudka ilaahay bal fiir qof markuu dilaayo si day doontaba u dilay laba qofood bas baa war ku soo hareen ku kale gaari kale raaceen gaariga kale markay raaceen isla daqiiqadii la yiri gaari kale taa ku yimaado wiilkiina wuu go'ay gabadhiina waa la arki laayaa la yiri ani ilaa hadda ma ogi horta ilaahay run kama dhigaan qof dhintana sooma laabto
midda koowaad. laakiin waxaa qarraacan igu noqotay oon aad uga naxay oo aan aad uga xumaaday waxa waaye xalay inay meesheeda joogto ee weliba garabkeyga ka ciyaaraysay maantana la oofsaday. bal fiiriya gabadha qof walbaba camalkiisu aakhiro la tagaa. yes waa run, laakiin waxaa jirto waxyaabo qaar isla markiiba maxaa iisoo sawirmay anigii kama marni meeshii saymaana anigaa ka daran intaasoo qofood anay ii imaadeen. fiidiyoyada xalay ugu dambeeyaa soo geliyey, isla fiidiyooga markaan soo gelina waa ka saaraa, heesayga brivate geliyey, waxawaaye waa wada tirtiray. wixii aan aniga hees qaaday ay ku jiray youtube-kayga waan iska tirtiray. walba wax badan kuma jirin, youtube-ka raagaha kusoo haray, youtube-ka raagana iga tirtir ayaan dhaha waa kaa tirtiraa ugu yidhi. waxaan kaloo rabaa aniga waan naxay, waxaan ku naxay awalba fanka waa ma rabin. habeen kasta waan cabsadaa, habeen kasta waxaan ka cabaqaa niho waxaan fahmi waaya habeenkii maalinta dadku isku feelin maahan. aniga habeenkii maalintii sidaan caadi u ahay habeenkii waa ka cabsi badanahay. marka si kastaba ha ahaatee waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesayga ugu jiraan, qofkuu doona ha ahaado. qofkii fiidiyogeygaan arka bataatan inuu fiidiyogeyga heesteyda uusan youtube-kiisa ku jirin, meel kasta hadduu isticmaalo iyo haddii kaleba baliis waxaa idinka codsanayaa, walaashin idinka codsanaysaa inaa bataatan iga tirtirtaan heesayga oo dhan, maadaama aniga aan fankii go-aankeyga ugu dambeeyey uu yahay aan ka gaaray. codsi ayaan wataa, qofkii inta fiidiyogeygaan arko oo youtube-kiisa heesteyda ee kasii isticmaalo ama sii gashto aakhiriyo adduun ma cafiniyo. ilaahay baa loo toobadkeelaa, ilaahay waa u toobadkeelay, hees dambana layguma oga. maalin walbaba waxaan isdhahaya israaqadana ilaah baa baxsho, fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay. markastana aan ka baryi jiray, aan dhihi jiray ilaahayo israaqad meel kaleeta iga sii. maantay in aan bataatan aan fankeyga soo gabangabeeyey, dambana aanan rabin inaan kusoo laabto meel aan ka heesa ama dambe aysan jiri doonin. heesna inaan qaado ilaahay baan ka magagalay, ilaahay teyda ha ii rumeeyo. aniga shaydaan waa dagaalanay muddo badan, aan dagaalameynay. muddada aan dagaalameynay waxawaaye uu iga xoog badnaa jiray, because wuxuu iga dhaadhici jiray israaqada inaan ka helaayo meelaha fanaannimada ah. wuxuu iga dhaadhici jiray inaan ahay inaan helaayo lacagtaan u baahdo fanaan haddaan ahay oo fanka ah ku jiro, ma fahanteen. laakiin marka maskaxdeyda iyo ilaahay aan niyadeeda gashto israaqada, ilaahay qofba meel ku siiya. intaan hadduu ilaahay ugu soo siinaayay, maanta niyadeeda waxaa ku jirta inuu meel kale ilaahay iga siinaayo. idinkaan i daawanayo hadda raydnaa u daawanayo ayaa isiinaya lacag, ma fahanteen. every video aa soo geliya aad daawatiin lacagaan ku helayaa. fanka marka muxuu ii taraayaa nothing, wuxuu ii taraaya mala. business yaraan samaystay, ilaahay ii barakeeyo, waxyaabo badanaa samaysanayaa. fan ma rabo. qofkii heesteyda shalay markaan soo galaayay waxaa ii geysatay shaydaannimo iyo caqli yaro. maanta damoor aad sii weyneynaysid, damoor aad sii xumeynaysid waa laga fiican yahay. waxaa fiican qofku markasta uu sii weynaanaa, garaadkiisa sii badanaayo, godkana waad usii dhawaanaysaa. dad baa waxay isleeyihin dhalinyaronimada markaad weynaato ka tabadkeen, yaa ku og inaad gaaraysid markaad weynaato. aniga waxaa idinka baryayaa laba wax waxaa waaye midda koowaad inaad ii duceysaan oo ilaahay iigu duceysaan wax ka qayr qaban fanka inuu isiiyo, oo aanad dib dambe ugu soo laaban. shaydaan iyo aniga aan meeshaas ku kala joogno. fanaannimada kaliya shaydaan maa, waxyaaba badanaa shaydaannimada shaydaanku waa aragteen. qofaan dambi gelin ma jiro, hadda ka bacdina dambi ma gelaayo ma dhahaayo, waan gelayaa bilaaadana ah. laakiin mid ilaahay ii yasiro oo aan ka toobad keeno mar walbaba allah iiga dhigo. midda labaad inaa fiidiyogeyga u sheer garaysaan, qof walba oo youtube-kiisa heesteeda ku jirtana aa rabood ku qabataan. hadduu u ka bixi waayo xitaa allah ka dhigay youtube-ka raaga, runta idiin sheegaya. hadduu ka bixi waayo qofkii aakhiriya adduunna macfinaya, qofkii heesteeda sii daawado oo sii gashto oo shaqo kasii raadsado oo israaqad ka raadsado oo views ka raadsado ma cafinaayo. anigaan hadda soo idinlama waxaynahay waxaa weliba iigu daran. halkan waxaan rabaa fariin inaan ugu diro Daahir Cali Sow.
daahir cabdulla cali soo heysay youtube-kii ku jiro bataata waana youtube-ka ku jiro waana bataata ka saartaa hadda ka horna anoo fanka ka bixin oo fanaanimada markaan intaana ka bixin heysii aan madaxayga qaawnaayeen ayaan fariina u qoray waxaan ku yiri iga saar heysaa bataatan madaxayga qaawan yahay midda kaleeto qof kasta oo heys aan leeyahay arko inta jecel ee wanaagayga jecel ee maanta ku faraxsan wadada aan qaaday ee islaamnimadu ay ku jirto waxaan ka codsanayaa bataatan qofkii iga saari waa inaad iga report gareysaan waliba maahane waliba inaad sida aan u cafinaynin inaad adikuna u habaartaan oo igu habaarteen inuu waxayga xoog hadduu ku haystana xoog Allah ka qaado haddaba waa idin sheegay shalay fanaanimada markaa soo galaayay qof aan la sheergareeyay ama dhahay ma jirto maanta fanaanimadeeda aan soo galaaya kana sameeyna inta idima aqoon man adikna ima aqoon laakiin maanta way taqaaniin qof kasta oo youtube-kiisa heesteeda ku jirto waxaan ka codsanayaa inuu ka saaro ama mid hore haato ama mid dambe haato ama waxa haato fiidiyoda kale oo hadalka qofka raba ha qaato fiidiyo hadlay dib ma laha laakiin fiidiyo hees ay muusiga ku jirto oo heesiyo raali kamihi fankana waa iska dhaafay ilaahayna waxaan ka baryayaa mar dambe inuu igu celin israaqada ka heli jirna meel fiican ilaahay kale iga siiyo inta codsi iga tahay ma fahanteen aniga iyo shaydaan iyo fisqi iyo dadka meelaha aan soo warmeelahan kiisa intaas oo qofooda madaxiga ku imaanay lacag ku soo galaayeen waan wada caweynayni waa wada farxayni laakiin waxaan iskugu imaanayna ma ahayn wax maxaa la yiraahdaa wanaagsan waxaan sameyn karnaa meelaha iskugu imaan karnaa adoon lacag ka bixin adoon lacag maxaan ku raadaa dhiibeen adoon heesayn adoon ciyaarayn meelaha iskugu imaan karnaa way jirtaa ku wada sheekaysan karnaa ku wada qaraaxaysan karnaa ku wada farxi karnaa oo walaalahayga aan ku wada kulmi karnaa ku wada sheekaysan karnaa dad islaamana dad walaalaanahay laakiin no more mar dambe ma dhacayso mana dhici doonto inaan meel dambe ka heeso ilaahayna ka maga galay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sida fanaaniinta hore inta fanka ka bixi ku soo laabtay inaanan noqon niyadeedana maanta kuma jirto mana geli doono shaydaanka inta ilaahayna ha iga haay ii soo duceeyo bedel khayr qaba ayaan rabaa fanaaniinta kale ee ku jirana waxaan u sheegayaa maanta waa noo shahay bir waa dhimanaysaa marka dhimatidna koo su'aalaha lagu weydiinaya kamid tahay heesaa waa ka toobadkeenay fanaan kasta ku jirto wallahi niyadiisa aniga waa qof kasta oo xumaan ku jiro wuxuu isku tala jiraa inuu maalin un ka toobadkeen doono laakiin maalinta ayaa ku gaarsiinaad garantiin ma haysatiin waa salaamantihiin miskiinta ina Axmed aheed fiidiyogeed waa inaad ii share gareysaan waa inaad tustaan dadka heesayga daawadana waxaad ka codsiga ta kuwa heesayga daawada codsiga ta waxa idin leeyahay ha daawanin oo idin baryaaya kuwa ay ugu jiraan hadad iga saari weyso waa kuma cafinaay ani waxaas waa iska daay bataatan waa iska daay waxaas waana salaamantihiin waxa waaye israaqadna khayr qabta oo ka fiican ilaahay isahlo youtube-kaas anoo saan u asturan hadaa ii soo fadhiisto oo maxaan ku raadiyay daawatiin waa lacag xalaal ah oo sida ila tahay hadaan qof isku dirin hadaan dad caynin hadaan dad luxmaynin hadaan xumaan ka sheekinin kuleeto sidaas ayaan umaleynaa culamadana waa weydiin doonaa insha Allah waa mahadsantiin jazakallahu khayr ilaahay waxaan ka baryayaa qof walbo aniga inuu ilaahay sida wadada wanaagsan wada tuso ee waxyaabaha badan aan iska dayno dambigu ma aha heesa kaliya waxyaabo badan ayaa jiro aniga businesskayga ilaahay inuu ii barakeeyo youtube-kaygaas waxaan ku shaqaysto oo aan xumaan idin soo gelin oo wax xun haddaad igu aragtiin waxaad igu tiraadaan qaali waxaas waa wax xun adikoon caayin oo xumaan igu soo gudbin message ahaan waxaad igu soo gudbisiin walaal waxaas ma fiicna qaali iska daa haddaad dhar qaaqaawan xirto ii sheega waxaad igu tiraan dharkaas ma fiicno iska daa haddaa aragtiin wax xun aan gadaayo waxaas kulleyta maanta kuma tali jirina wax xun gado laakiin walaalahey ayaa tihiin walaashiin ayaan ahay maanta aniga kale dambiga waxa waaye idinlayma qoraayo dadka ila daawanayo wax xun aan soo sheergareynaa ee ii sheergareynaa ila gareynayana way ugu la jiraan dadka heesaa dhageystaa kuwa qaado waa seema leeri marka adinkana waxa isku boraarinayaa waxyaabaha xun aad sheergareynaysiin iyo heesaa inaad iska dayno fanaaniinta gabdhaha iyo wiilasha fanaaniinta Soomaaliyeedna waxa leeyahay fanku waxaar laga gaara malaha lacagta adduunka dadka heshid xitaa meelna kuma gaartid been idiima sheegay intaas oo sanaan ku jira fanka
maalinna wax aan ka faa'iiday macnaha lacag maanta dhan aad cunaydo aad wax ku xiranayso aad inta samaynayso aad inta geynayso ani waxaan isdhihi jiray lacagtan aad familkaaga iyo adiga u baahan iska isticmaala waxaan samaysta laakiin maanta youtube-kayga lacag ka heli karaa barnaamijyadeeda businesskayga kale aan samaystay ilaahay barakeeyo adinka ayaa lacag siiya adinka ayaa dhan kasta garab kasta iga taagan fanaannimada heesta aad igu daawan jirteen ama meelaha aan ka heesi jirana waxa waa youtube-kaygaan ka helaya galabta xagga aadi jira inta idinkaga sheekeynaya ma fahantay haddaad kulankayga u xiistiina meelahan iskugu imaanayna oon ka wada sheekeyn ku wada farxi karnaa oo anagu dad caayin ku wada sheekeysan karnaa anaga dadka masaakiintaas wax ugu qaba lahayn iyo waxyaabo badan iyo diinteena saan u horumarin lahayn inaan ku tala jirno dad baa waxay leeyihiin qaali hadda sheeqay noqonaysaa kan waaye dad wax sheeqnimada lagu sheegayo waa adiga afkaaga laga amaan helo salaadaada dukato gurigaaga joogo reerkaaga dhaqdo waa intaas ma ahan inaan aniga maanta aan dhaho dugsi hebelaan galay haddaan galana wax xun ma ahan laakiin muhiimadu waxa waaye fankiya waxaa noosii dheer wallahi inaan bidin sheegin xan qof kasta u sheegaya maanta haddaan meel tago waxaan tama qof baan xamanaya qof walba anoon heblaaye hebel dhaynin qof kasta oon afkayga magaciisa ka soo qaaday iska kay cafiyo anna cafisa iga tihiin ilaahayna waxaan ka baryayaa wax xun inuu ilaahay iga dheereeyo oo aan noqdo qof iska caadiya oo idinka camal ah mada kale waxa kale oo idinka codsanayaa meel haddaa isku aragno fanaanada qaaliladan yaan lay dhihin magacayga waa qaaliladan waxaad idhigi kartiin qaaliladan waxaad idhigi kartiin qaali axmed laakiin fanaanadeena hay dhihinayna bliis fanaanadiina mihi maanta waxaan ahay walaashiin miskiinta ina axmedaheeda ahay miskiinta ina axmedaheeda inii ahay ma fahmi huseen miskiinta ina axmedaheeda ayaan maanta idii ahay beridii ahay beri dambena inay ahay qaaliladan waa idhihi kartiin laakiin fanaanadii bataata inay dhahdiin marow waa mahadsantiin jazaaka allahu khayr hal ii soo duceeyo gabadha walaashay ee dhimatayna maanta ee weliba aan aad ka uga naxay shalay qofkii agteeda ka heesayay ee maantana iga hooseeyo wallaahi waa waxaan aad uga naxay sababtoo waxaan uga naxayaa waa fahmi kartiin qof walbaana ha ku duceysto maalin sad wanaagsantaa maalin lagu qalooci karaa laakiin maalin walba waxaad ku duceysataa daqiiqad yar allah ka dhiga waxaad ku duceysataa inuu ilaahay kugu duwo toobada toosan adoo toosan oo dheedid qofkaa wuu xun yahay qofkaas qof xun waayo qofkaas ahlunaar waa ma dhihi kartid ma fahmaysin dembigeena wuu badan yahay fanaanimada dembi ka badanaa jiro kaas xitaa allaha iga cafiyo inta dembi aan galay ilaahay baan cafiska weydiisanaya adika idinkama weydiisanaya laakiin ii duceeya fanaaniintii naga horreeyey ee kuwii dhintay iyo kuwa maanta ku jira ayagoo waaweyn wax waaye na u duceeya qof kastoo islaamana u duceeya soo ma aan fahmin jazaaka allah khayr waa mahadsantihiin waa kaasaa youtube-kayga wax waaye subscribe dhab ha lagu dhaho hal ii sheer gareeyo youtube-kayga waxaan rabaa shalay markaan fanaan ahay iyo maantoona fanaan ahayn differenka u dhexeeya inuu noqdo inaan maanta ka level sareeyo haddii aad shalay ugu taageeri jirta fanaannimada maanta waxaad ugu taageeri kartaa walaaltinimadaada jacaylka walaaltinimo qofkii si personality ee ku jecel ama si caadi ku jecel waa qofka wanaagaaga jecel ma fahanteen shalay haddaad fanaannimo igu daawi jirtay ama aad igu taageerisay maanta waxay igu taageeri kartaa walaashaada jazakallah walaashaada ayaan ahay waa mahadsantihiin waxaan ku yiri fanaaniinta kale say dad badan ayaa jira oo niyadooda ku jirto is aaminsan fanaannimada kaliya inay saraaqada ku helayaan laakiin inaad tustiin maanta inaan maxaan ku rahdaa aan ka level saray karo oon ka waxays badnaa oo youtube-kayga ka views badan karo oo ka like karo oo share oo ka subscribe badnaa karo ma fahante waana mahadsantihiin everydayna waa idiin soo fadhiisanayaan markaan waqti helaba waa idiin soo waa sheekeysanaynaa waa wada qaraxaysanaynaa filmaan waa idin dhigi karaa filim waa soo jili karaa filimku wax waay haddaan isqaawinin oo xumaan idiin soo gudbinin oo wax caadi idiin soo gudbinayo filimku dambe kuleeta inuu yahay muu malaynaayo waa hadalkuna heesta ayaa xaaraam ah hadalku hadduu wanaagsan yahay uu yahay filim caadi aniga odageygana waxa waaye markasta waxaan dhahaa heesta dambe yahan duubin mar waraaba ku dhaha heesta video waa duubin hadduu duubana kuleeta asaga ikhtiyaarkiisa laakiin anigu waan u sheegay filmaantaada iyo aniga asagoo maanta idiin soo fadhiisan idinka badan ama aniga oo idiin soo fadhiisto intaas waa mahadsantiin
khayr allah isiiyo ducada iisoo kaba walaashayna iyo wiilka dhintay iyo qof walba maanta islaam adduunkan ka tegay u duceeye kuwa hore u tegana ilaahu naxariisto kuwa maanta dhintana allahu naxariisto kuwa noolna allahu naxariisto ilaahay noo wada naxariisto jazaaka allah